Foya Visa waa shirkadda kaliya ah ee Turkiga u qaabilsan bixinta fiisaha guud ahaan Soomaaliya. Markii la joogo ganacsiga waxaa loo yaqaanaa monopoly oo ah adeeg shirkad gaar ah loo xiray. Halkan waxaan ku arkay inuu jiro musuqmaasuqii ugu darnaa oo ay wajahaan bulshada Soomaaliyeed, laakiin nasiib darro dadku kuma dhacaan inay ka hadlaan dhibaatada haysato. Sababta oo ah qof kasta waxa uu weli rajo ka qabaa inuu mar uun heli doono fiisaha dalka Turkiga, waxa uuna ka baqayaa inuu saameyn ku yeesho hadalkiisa. 90% dadka raadsada fiisaha dalka Turkiga waxaa la sheegay in la siiyo diidmo ama reject, xataa iyaga oo soo maray habraac sax ah, ilaa ay bixiyaan laaluush sida ay noo sheegeen ila wareejo ka mid ah dadkii hore u helay fiisaha iyo qaar ku guuldareystay. Halkii qof isku day kasta waxaa ka khasaara ugu yaraan $500, halka qaarkoodna ay ka khasaarto lacag $10,000 ah. Sidoo kale waxaan halkan ku arkay in aan dadka loo sheegin sababta ay ku muteysteen diidmada iyo waxa ka qaldan si ay isaga saxaan. Waxaana loo dhiibaa warqad ay ku qoran tahay nama weydiin kartid sababta aan kuu siinay fiisaha iyo sababta aan kugu diidnay. Mas'uuliyiinta Foya waxaa la sheegaa inay xiriir la leeyihiin ajensiyo gaar ah, waxayna badanaa rejectiga u bixiyaan in dadka lacag ay siiyaan ajansiyada ay xiriirka la leeyihiin si ay wax uga helaan lacagta laga qaado qofka dhibanaha ah, lacagtaasoo u dhaxaysa $3,000 ilaa $2,000. Mid ka mid ah dhalinyarada ku daalay helidda fiisaha dalka Turkiga oo uu baahi weyn u qabay ayaan kula kulmay xarunta Foya Visa ee degmada Cabdicasiis, isagoo soo qaatay diidmadii ugu dambeysay ee quusisay. Waxaana ka duubnay cod muujinaya niyadjabka iyo xaaladda quusta ah ee uu wajahayo. warniyo horta meeshaan waa la isku baartaa kowdhan meeshaan markii saddexaad oo hadda markaa imaanayo hooyadii xanuunsan xafiis walaah dukumeentiyadii iyo wuxuu dhan waa dhammaystiran yihiin maxaa kale ma la daahininba waxaan umaleynaa safaarada aan geyn meeshaan la isugu dhex yaalin waa la soo waxaa soo doona reject qaar hase wax jiraan wax ma iga qaldanay ma waxa ka qaldan socon waa laabtay haddana waa ku soo laabtay mar labaad nase wax jiraan meeyo xaaladda ma fahmin mar dambe waxa la yiraahdaa saaxiib hadda wax fahmin inta lagu sheegaa $2,000 bixisid toddobaad ku helay fiisa maamadan waa lameena hawsha war $2,000 war anaa qof xanuunsan war maamada san calay oo u tugtamay nag wax kasta waa lidii markii meeshaan horta waa la isku baartaa saaxiib si fiican. Sidoo kale waxaan la kulanay wiilkan dhalinyarada ah oo aan qarinay magaciisa iyo sidoo kale muuqaalkiisa si aysan dhibaato uga soo gaarin wareysiga oo bixinayo, maadaama uu weli rajo ka qabo inuu helo fiisaha dalkaasi. Waxa uu aaminsan yahay in baasaboorkiisa iyo dukumeentiyadii uu watay aan loo gudbin safaaradda dalkaasi, laakiin ay rejectiga siiyeen mas'uuliyiinta shirkadda Foya oo uu sheegay inay samaysteen xaashida diidmada ah ee dadka loo dhexgeliyo baasaboorkooda. waxaa caqabado kala kulmay sanadkii tagay 2022 dhamaadkiisa 2 jeer ayaa isku dayay inaan xareysto fiisa Turki ah. 2 jeer reject la soo siiyay oo ay nii jabay haddana mar kale 2022 bishii 3 ee Maarso ayaa mar kale xareeyay haddana anigoo filanayo in fiisa soo baxday mar walba waraaqada reject dhex taaran. waxaa dhibaatada weyn ay tahay lacag badan aad bixinaysaa shirkadaha magaalada ku yaalo waa badan yihiin hadba qofka si ula heshiin waay tan anay ugu dhicaan tusaalaha watay gabar iga horeysay oo aan iga fogeyn ayaa xareysatay lacag ay ka cuneen markay lacagtaas ka cuneen shirkadii kala lacagtii 3,000 tahay waxa lagu dhahaa intaas jaamacada lagu shubay intaan saan ku baxday waxba habeenay lacagta laga jarnaa laakiin dadka hadda joogo wax badan ay fahmeen lacagtii hadda bangiga la kala dhigtaa wax lacag ka bixi maayo kaliya waxa way rejectigaas oo saameyn ku yeelanaysa oo ah mid xanuunkeeda leh oo niyad leh lacagaas oo caafimaadka iyo sidii ku soo laabanaysa hadda ma jirto lacag oo dad laga jarto laakiin dadka isku mid maaha qofku wax weyn oo marka ku cusub barnaamijkan lacagta waa laga qaadanaa. dadka wata baasaboorka serviceka ee la siiyo shaqaalaha dawladda iyo mas'uuliyiinta kaleba ayaa si dhib la'aan ah u hela fiisaha dalkaasi, laakiin bulshada dhibaatada qabta ayaa ah kuwa haysta baasaboorka caadiga ah ee Soomaaliga. xiriir aan la sameynay mas'uuliyiinta shirkaddan waxay diideen in arrintan ay ka hadlaan. dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax ma ka qaban doontaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed ka haysata fiisaha dalka Turkiga oo loo xiray shirkad gaar ah.